mudanayaal iyo marwooyin anigoo ah gudoomiyaha Somaliland Society in Europe Nuura Cali Dhuxul iyo guddida fulintu SSC waxaan marka hore hambalyo u diraynaa dhammaan muwaadiniinta qurba joogta jaaliyadda Somaliland ee qaaradda Yurub iyo daafaha caalamka u dabaaldegaya xuska sanad guurada 23aad 2023 ee ka soo wareegtay dib u soo noqoshada qarannimada Somaliland 18 May 1991 dalladda jaaliyadda Yurub ee SSC Somaliland Society in Europe waa dalladda guud ee ururada bulshada Somaliland ee qaaradda Yurub waana shabakadda matasha ururada bulshada Somaliland ee ku nool Yurub iyo guud ahaanba jaaliyadda Yurub waxaana la aasaasay dalladda SSC 2001 hadafka iyo ujeedooyinka ugu waaweyn ee dalladda SSC waa isku xirka ama xiriirinta iyo iskaashiga ka dhaxeeya bulshada Somaliland ee ku nool qaaradda Yurub ilaalinta difaaca qarannimada Somaliland ixtiraaf raadinta qarannimada Somaliland horumarinta iyo guud ahaanba adkeynta qarannimada Somaliland iyo sidoo kale Somaliland ay u noqon lahayd dawlad madax bannaan oo caalamka laga aqoonsan yahay waxaan halkan ka jecelahay inaan ka xuso guddida fulinta ee SSC ee hawshan ka soo shaqaysay waxaan kale xusayaa guddoomiyaasha Yurub oo dhan uu gaar u yahay guddoomiyaha Holland iyo wakiilka Holland Maxamuud Digaale oo ka soo shaqeeyay isagiyo jahliyadiisu iyo Nomad ururka Nomad ay ka soo shaqeeyeen in ay shirka culayskiisa inta far badan iyaga ku dhaco ay qabtaan ay hawsha ka soo dhamaadeen waxaan kale salaamayaa madaxweynaha qaranka Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan salaamayaa golaha wakiilada golaha guurtida waxaan salaamayaa astaanta qaranta oo ah militarigeena in difaacaya meel kasto ay joogaan aad iyo aad baan idin wada salaamayaa anoo ah gudoomiyaha Somaliland Society in Europe Nuura Cali Dhuxul iyo guddida fulinta SSC aad iyo aad baan idin salaamayaa guul iyo gobonimo Somaliland ha noolaato